ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ورصاحب يال waxaan arkay idinku ma ila aragtin hadda tiin Soomaali dhamaantiin waxbaan arkayna waa waxaan la ku soo bandhigi doono insha Allah ana ka hadli doono qiso ahaan iyadoo dhab ah ambassador dhacday waxaan maanta hablaha Soomaaliyeed ku farabaxsanaya laakiin waxaan leeyahay dhamaantood ma hayna hay ka raali noqdaan waa barkooda uun bal saaxiib inta aan muuqaal guda galin waxaan ka codsanayaa in video like saarto sina share gareyso bartan YouTube ka Cabdalla Deeqsina ha subscribe ku sameyso saaxiib subscribe waxay noo tahay in dhiirigelin ama shuruudihii higsigan inuu buuxino leegtuna waxa gaarsiinaysa saaxiibo wanaagsan oo kale soo kale video ka dad like saarto amba si share gareyso waxa tahay walaalkayga nagu dhow ama qofka kaliya ee caawiya man dhiirigeliya inta hore idinkan dhiirigelin jiray weligiin dhiirigelin naga istaagaya sababtoo ah saaxiibadooda iyo walaalahayba waa idinka waxaan idin leenahay saaxiib yaali video like saar si share gareeya share iyo like subscribe tuna waxa gineen ugu caawiyo kuma santiin daawashada muuqaalkan iyo muuqaalka la soo gelino in bartii Cabdalla Deeqsi way YouTube keena soo kale page-keena waxa ku qoran Cabdalla Xuseen waan ma santiin magacaygu Cabdalla Xuseen Cabdalla Deeqsi saaxiib xaqiiqada marka aan ka hadalno amba si dhab ah isku hadalno waxyaalahan arkay amba sanadaha dambe social media ku soo badanaya waxa kamid ah in waxaad arkaysaa hablihii Soomaaliyeed waxa ay u bateen inay iska sawiraan qaybaha dambe ee jirkooda sida qaybaha hore amba qaybaha hore jirka xagga naasaha kale amba xagga qaybta dambe ee gadaal amba in sad u taqaana amba barida hablihii waxaan anigu u kala garan waayay hadda khaasatan markaan aniga iska hadlaayo inay iib geynayaan qaybta dambe ee jirkooda oo hay iib geyn amba suuqin ku sameynayaan si ay u soo bandhigaan inay ragii Soomaaliyeed iyaga hay hablaha sidan ku qasbeen oo hay gabi ahaanba xagga dambe eeganayaan habluhu ragga Soomaaliyeed oo gabadha ka badida weyn tahay raacayaan horta dabcan aniga ahaan markaan iska hadlo gabadha buuran amba badida weyn leh doqayga maaha amba si kama heloba laakiin hablaha buuran dhamaan wax ka sheegin kuwa sidoo kale jirkooda soo bandhigana te qof waa minu shaytaan amal waa qof shaytaan kullu ma yahay adigagan ba fidma ahaan kugu fidmoobaysayo fidma ahaan inaad iska fogaato mooyaane fidma ku noqonaysa balse waxyaalaha ugu badan ee arkay waxay kamid ah sawir kasto ay habluhu galayaan waxay soo bandhigayaan gadaashooda dambe ama naaskooda hore si hay labadaas shakidi ay soo bandhigayaan balse waxa aan isweydiiyay ama qalbigayga in badan ka gooxaysay maanta inaan ka hadlo oo aan afka furto igu qasabtay waxa ay tahay hablihii Soomaaliyeed maxaasan ugu dhigay inay jidhkoodii iibgeeyaan Soomaaliya waxa lagu qiyaasa waxa lagu magacaabaa amba waxa lagu ay tahay wadan muslim ah oo ku dhex yaala Afrika وانا بقولك waa wadanka kaliya ee muslim ah in sidoo kale wadamo waxa jira sidoo kale Turkiga kale waa wadan muslima laakiin waxa ku jira kurtidaas oo haysta diimo kale balse Soomaaliya waa wadan hal qabiil oo kaliya oo Soomaali ku hadlay degayn soo kale waa wadan wada muslim ah balse waxa presidentida soo baxay in Soomaaliya markay qurbaha tagaan dadka Soomaalida lagu marmoolay dadkan malaha muslim sax ma ahan sababtoo saaxiib ay sameystaan dhaqamadii gaalada ku dhaqmaan intooda badan amba qayb ka mid ahan in sidoo kale waxa Soomaaliya lagu qabsaday amba lagu dooday muddo ugu dambeeyay inaysan ahayn dad Afrikaan ah haween dad Afrikaan ma aha sababtoo ah hablaha Soomaaliyeed marka ragga laga tago oo ragga cadcad waliba in hay midoobaysay hablaha Soomaaliyeed dhamaantood wada casaan amba waxay raacsan bulshooyinka cadaanka sababtoo ah quruxda hablaha Soomaaliyeed cid kale oo lima jirto balse quruxdu ma ahan inaad qaawanaantaada ku soo bandhigto jidhkaaga ee waa inaad adiga oo niqaaman amba xijaaban amba sharaf iyo karaamo leh sayintan oo kale bal quruxdeeda u fiirso xijaabku waa qurux Rabbi inagu manaystay hablaha Soomaaliyeed ku manaystay sababtoo ah gabadha xijaaban ee quruxdeeda way soo baxaysaa balse marka aad isqaawiso jidhkaaga ka dhigto waxba ka jirin waxa noqonaysaa qof xun oo dadka bil'aadmiga dhamaantood ay habaaran bil'aadmiga ku dhacaysa waxay ku noqonaysaa habaar saaxiibayaal horta ma qaldanahay mise waa saxanahay idinku commentiga aragtiina noogu reeba anigu waxaan aad ku la yaabay taqaana hablaha Soomaaliyeed waxay ahaayeen habla lagu bartay xijaabka iyaga oo in dhar qurux badan xidha sawir ha soo galaan waa caadi way qurxinayaan jirkooda ha qurxiyaan waxna min diin inay gabadhu ninkeeda soo qurxiso soo kale markay gabadha la yar tahay waqtigan casriga lagu jiro hay qurxiso macnaha xidhata laakiin dhar asturan balse waxaan aad ku la yaabay waxay tahay hablihii Soomaaliyeed inta dharkii asturan iska daayeen marka laga reebo qaybta yar sida hablahan halkan imkaan ku arkayno in qaybta dambe ee muuqaalka marka laga reebo qaybaha hablahan oo kale ee sidoo xijaaban sidoo quruxda badan waxa jira hablo iyaguna qurux badan balse waxay ku xumaadeen abahay ku qaldeen in quruxdoodii inay qaybta dambe ee badidooda soo bandhigaan markasta meelaha mashraxdina ku soo daabacaan in sidoo kalena hay labadooda naas hore iibgeeyaan waxa si aad ka ugu yaabanahay waxay tahay oo maskaxda ka guuxaysa ragga Soomaaliyeed waxay noqdeen dabaraac amba kuwa xagga dambe ee hablaha markasta fiiriyo saddeed hablihiina waxay dareemeen inay raggu siday noqdeen oo iyaguna waxay yiraahdeen maadaama raggii basan sameeyaan idinkuna had badidiina iyo qaybtiina dambe ee jirkiina iibgeysaan mise hablihii Soomaaliyeed ayaa siidii oo maskaxdooda ka keenay inay badida weyn la daawanayo waxan intay duf ku soo goraan aba buushan dhaahdee amba in waxyaalaha waxa jira dawooyin aan qaybaha jirka lagu koriyo inta ku soo koriyaan hay qaybta dambe ee sawir iska rijineen amba isku soo xidhan dhar rijisa oo hanan jirkooda waxba ka sakaynin sidoo kale iyaga oo qaybo jirkooda kamid yahay qaawan yahay
oo hanan wax sidaas ah aysan saarin ay soo bandhigeen qaarkood waa arin aad mucjiso leh sawir waxa la galaa waxa loogu talagalay in xagga qaybta hore wajigaaga hal laga arko wajigaaga si caadi loo arko laakiin haddii badhidaada ha sawirto ma badhidaada ay dadku fiirsanayaan mise calooshada iyo keliyaaga waxaan kaloo qaar ku fikiraa dadkan qaar malaha Soomaali ma ahan macnaha wadad u baahan ru'aanti dhaqan celis amba in wadanka dib mar kale ay loo wada keeno dhaqan celin loo sameeyo oo dabib weyn loo sameeyo waxaad arkaysaa inan dharkii ragga soo kale waxaad arkaysaa oo waliba indhajis ah soo kale waxaad arkaysaa inan badhideeda sawiraysa farana taagaysa soo kale waxaad arkaysaa wajidkoodii oo qaawan ku soo bandhigaya meelaha public ah war gabadh waa sharafta hay leedahay waxay tahay waa inay xijaab xidhato waa inay guriga hooyada joogto waa inay asturaato oo diin iyo akhlaaqad lahaato hablaha kaasoo kale ah wiil ayaa la dhashay dhaqankii hablihii waxay raaceen qurbaha iyo ambasahan u dhaqaanay in sida gaalada oo kale Yurubiyinkii ee galbeedkii dhaqankooda ay raaceen balse saaxiib adigu say kula tahay maxaa hablaha Soomaaliyeed kula dardaarmaysaa waxaan leeyahay walaalay istura bal saaxiib adiguna aragtidaada comment-ka noogu reeb